Assalaamu calaykum. Magacaygu waa Cabdikhaaliq. Ku soo dhawaada barnaamijkeena maanta. Maanta waxaan ku hayaa 3 qodob cajiib ah. Waa 3 arrimood oo ka kala dhacay goobo kala duwan. Julio Gonzalez waa nin u dhashay dalka Cuba, laakiin wuxuu ku noolaa oo deganaa gobol ka mid ah Mareykanka. Ninkan la yiraahdo Gonzalez wuxuu xiriir jacayl ka dhexeeyay gabadh lagu magacaabo Ima oo iyaduna Ameerikaana. Maalin maalmaha ka mid ah isaga iyo saaxiibtii Ima way isku dhaceen waana kala hadheen. Waxaanay go'aan ku gaadheen inay xiriirkooda halka ku saafjaraan. Intaasoo kaliya kuma ekaane, xitaa waxay ku kala tageen magaaladii ay wada deganaayeen. Ima waxay u shaqo tagtay gobol kale, isaguna waxa uu sii deganaa goobtii uu joogay markii hore. Muddo kadib 25kii Maarch 1990 Gonzalez wuxuu ogaaday inay ka shaqeyso meel supermarket ah oo lagu magacaabo Highland. Marka meesha ayuu raadiyay, waxaanu rabay inuu gabadhii saaxiibadiisa ahayd ula soo heshiiyo xiriirkoodii ay dib u soo ceshadaan. Ugu dambeyntiina wuxuu si fudud ku helay adreeskii goobta. Wuxuu ugu tegay meesha ay ka shaqeyn jirtay, waxaanu ku codsaday inay dib isugu soo noqdaan. Laakiin nasiib xumo Ima way ka diiday arrinkaas. Taa beddelkeedana waxay ku dirtay shaqaalihii supermarketka joogay. Si aan shaxmaana waa laga soo saaray meeshii. Intaa kadib ninkii Gonzalez isagoo aad u xanaaqsan ayuu soo baxay, waxaanu soo qaatay caag batrool ah. Albaabkii meherada ayuu batroolkii ku shubay, dabna uu qabatiyay. Midda ugu daranna waxay ahayd albaabku dushu ka xidhnaa, dhammaan dadkii goobta ku jirana way wada gubteen. Kaliya waxaa ka badbaaday 6 qof, waxaana ka mid ahaa gabadhii Ima ee uu darteed meesha u gubay. nin u dhashay dalka Shiinaha oo lagu magacaabo Ren Xiaofing waxa uu ka shaqeyn jiray bangi ku yaala magaalada Longan ee dalka China. Maalin maalmaha ka mid ah wuxuu ku fikiray inuu bangiga lacag kala baxo si qarsoodi ah iyadoo aan la ogeyn. Wuxuu doonayay inuu lacagta ku galo khamar, haddii uu ku guuleystana inuu lacagtii bangiga dib ugu soo celiyo, qaybta kalena uu isagu qaato. Markii ugu horeysay wuxuu bangiga kala baxay 200,000 waxaanu ku ciyaaray khamarkii. Wuxuu nasiib u yeeshay inuu ku guuleysto lacag dhan 400,000. lacagtii uu bangiga ka xaday oo ahayd 200,000 waxa uu dib ugu celiyay meesheedii. Haddaba muddo kadib markii lacagtii hore ka dhamaatay, waxa dib ugu soo laabatay fikradiisii hore. Waxaanu mar labaad ku fikiray inuu bangiga lacag kala baxo. Laakiin markan wuxuu fikradii la wadaagin inay saaxiibo yihiin oo lagu magacaabo Larry, bangigana ay ka wada shaqeeyaan. Waxaanay labadii nin ku heshiiyeen inay markan lacag fiican la baxaan. Markii hore wuxuu qaatay 200,000. laakiin iminka waxay la baxeen lacag dhan 33 milyan oo riminka Shiinaha. Ren iyo saaxiibkii Larry lacagtii faraha badneed ay khamarkii ku galeen waana ku khasaareen markan. Haddana waxay mar labaad ku heshiiyeen inay lacag kale bangiga kala baxaan si ay lacagtii hore uun iskaga gudaan. Waxaanay qaateen lacag dhan 18 milyan, laakiin nasiib xumo mar labaad ayay khasaareen. Muddo kadib labadii nin arrintoodii ayaa la ogaaday, waana la soo qabtay. wargeysyada qaar waxay sheegayeen labadii nin in lagu xukumay dil, qaar kalena waxay sheegayeen in lagu xukumay xabsi daa'im. Keith Marwal waa gabadh Korean ah. Gabadhan waxay lahayd saaxiib, yacni wiil Korean ah iyo xiriir jacayl ka dhexeeyay. Maalin maalmaha ka mid ah wiilkii ayay isku dhaceen, xiriirkoodina way jareen. Maalmo yar ka bacdi Keith waxay isku dayday inay dib ula xiriirto saaxiibkeed, laakiin wiilkii uu ku adkeeyay inuu la hadlo, telefoonkana kama qaban. Waxaana la sheegay muddo 1 isbuuc gudihii inay soo wacday 27,000 oo jeer, iyo sidoo kale inay u dirtay 22,300 oo message. Run ahaantii waa arrin la yaab leh. Qof hadduu 2 ama 3 ama ilaa 4 uu kaa qaban waayo telefoon waa iska diin karaysaa, laakiin 27,000 oo call iyo 22,300 oo message waa arrin wali ah. dabcan waxaan oran karnaa waa dhibaatada jacaylka. isaga laftigiisu qalbi dhagax u ahaa, yacni siduu waxaasoo koola hal mar u qaban waayay. marka wiilkii booliska ayuu tegey, waanu soo dacweeyey. iyadiina waa la soo qabtay, haddana xabsiga ayay ku jirtaa, waxaanay sugaysaa maxkamadda.